Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janaalkeena. Istighfaartu waa ficil muhiim ah oo qof walba noloshiisa ka dhigaysa mid iftiimaysa, qalbigiisuna wuxuu dareemi doonaa xasilooni. Waa hab uu qofka Ilaahay uga magangalaya khaladaadkiisa uuna ku dalban karo dembi dhaaf. Qofka badiya istighfaarta wuxuu helayaa barako, xasilooni, fursado cusub oo shaqo iyo fursado cusub uu hanti iyo dhaqaale ku samayn karo iyo xasilooni nafeed. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa faa'iidooyinka istighfaarta iyo siday noloshaada u bedeli karto. Qof walba maanta wuu rabaa noloshiisa inuu bedelo, inuu dhinaca wanaagsan u dhaqaaqo, adduun iyo aakhiraba inuu horumar gaaro. Qof walba waa uu rabaa. Istighfaartu waa furaha dembi dhaafka. Qof walba waa dambiile, balse kuwa ugu wanaagsan intay dembiga gashaa waa kuwa mar walba Alla u toobad keena oo istighfaarta badiya. Nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bini aadamku idil waa khaldamaan, kuwa khaldamana waxa ugu khayr badan kuwa toobad keeno. Kullu ibnu aadam khadaa wa khayrul khadaa'uuna at-tawwaabuun. Haddaba haddii aad dembi gashay ha quusanin. Ilaahay waa naxariis badane waana dembi dhaafe. Qofka si daacad ah u toobad keena wuxuu helayaa nadiifin laga nadiifinayo dembiga iyo fursado cusub oo noloshiisa ah. Istighfaartu waxay fududaysaa risqiga iyo in aad xoolo hesho. Dhibaatada dhaqaale iyo shaqo la'aantu waa caqabad ay dad badan la tacaalaan, balse istighfaarta oo la badiyo waa furaha barakada iyo fursadaha cusub iyo dhaqaale lagu helo. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu quraankiisa ku yiri dembi dhaaf i weydiista aan idin dembi dhaafee, markaas baan idin siin doonaa roob baraka leh, waxaan idin kordhin doonaa maalka iyo carruurta. Haddii aad rabto barako iyo horumar, caado ka dhiga istighfaarta waa sirta guushii. Istighfaartu waxay keentaa xasilooni iyo farxad. Qofka bini'aadamka ah wuxuu mararka qaar dareemaa culays iyo murugo. Waxaa dhici karta in qofka uu xasuusto khaladaadkiisii hore, taasoo keenta niyad jab. Balse istighfaarta iyo dembi dhaafka joogtada ah waxay noloshaada gelinaysaa deganaansho iyo farxad. Waxaad arkaysaa wax walba asoo ku dhibeynin oo aad iska faraxsan tahay, maalintaadana ay iska quruxsan tahay. Markaad istighfaarsato waxaad dareemaysaa in qalbigaaga la nadiifiyey, waxaadna kasbanaysaa dareen wanaagsan oo noloshaada iftiiminaya. Istighfaartu waxay kaa badbaadinaysaa dhibaatooyinka. Bini'aadamku wuxuu la kulmaa dhibaatooyin kala duwan, cudur, dhibaato dhaqaale, murugo iyo walwal. Mid ka mid ah siyaabaha ama qaababka dhibaatadaas looga baxo waa in la badiyo istighfaarta iyo dembi dhaafka Ilaahay subxaanahu wa tacaala la weydiinayo. Nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka istighfaarta badiyaa Ilaahay wuxuu u furaa dariiq kasta oo xalka ah, wuxuu u fududeeyaa murugadiisa, wuxuuna ku arsaaqaa ama uu ka arsaaqaa meel uusan ka filanaynin. Haddaba midkee inaga naga mid ah oo aan rabin haddii ay murugo qabsato in dariiq xal Ilaahay u furo, murugadiisa inuu Ilaahay u fududeeyo meel uusan filaynin Ilaahay ka arsaaqo. Dhammaanteen waa wax aan ku haminayno oo aan rabno. Haddaba haddii aad rabtid inaad intaas iyo ka badan hesho, ku dadaal istighfaarta. Haddii aad la kulantay caqabado, ha niyad jabin halkii aad ka welweli lahayd, balse istighfaarta badi. Dhibaato ma ku qabsatay, murugo ma ku qabsatay, caqabad ma ku qabsatay, intaad meel fadhiisato ha fikirin, ha welwelin, istighfaarta badi. Waxaad arki doontaa adigoo arrintii ku xalismatay, qalbigaagana uu aad u xasiloon yahay. Istighfaartu waa calaamadda mu'miniinta. Qofka iimaankiisu sareeyo mar walba wuu istighfaarsadaa, waayo wuxuu og yahay in Ilaahay uu u dhowaanayo. Nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu istighfaarsan jiray in ka badan 70 jeer maalintii, inkasta oo uu ahaa mid aan dembi lahayn. Haddii nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo aan dembi lahayn
sidaas istikfaarta u badan jiray maxaad adigu u dayacaysaa? caado ka dhigo inaad leedahay mar walba istikfaar si aad u hesho xasilooni iyo barako. istikfaartu waa sirta guusha, farxadda iyo barakada. waa fure uu qof walba u baahan yahay in uu ka dhigto mid ku jira jeebkiisa si aad u hesho nabad, nolol faraxsan iyo horumar. haddii aad noloshaada baraka la rabto, haddii aad murugo dareemayso ama haddii aad rajo ka qabto in ilaahay kuu barakeeyo nolosha, istikfaarta badi. waxaa laga yaabaa inaad maantaba bilowdo kuna dadaasho istikfaarta uuna ilaahay subxaanahu watacaala ku tuso isbeddel weyn oo noloshaada, taasoo kugu keento in aad ku tamaniso in aad mar hore bilaabi lahayd istikfaarta si aad u hesho faa'iidadan aadka u qiimaha badan. haddaba walaalaha sharafta leh, qisaska laga arkay istikfaarta. qisadeena koobaad waxaa ka sheekeynaysa gabadhaani waxay tiri, waxaan ahaa gabar xaas ah. ninkayga markii aan isguursanaynay xoogaa duruufo nololeed ayaa iska keenaystay. wuxuu iga codsaday in uu ehelkiisa ama familkiisa ila dejiyo, laakiin bilooyin kadib uu meel gooni ah i dejin doono. arrintii waan ku waafaqay, waxaan la degay familkiisa ama ehelkiisa. wixii aan culays dareemo oo aan sabro oo aan dulqaataba, ilaahay subxaanahu watacaala ninkii noloshii waa u qurxiyey, lacag iyo hantiba alla waasiiyey oo uu ku awoodo in uu guri gooni ah i dejiyo, iyo xitaa guri uu leeyahay inuu i dejiyo oo uu guri gato. laakiin ninkii wuxuu noqday nin leh, aniga hooyada iyo walaalahay kama tegaayo, kamana guuraayo, meeshan ayaad degnaanaysaa. anigu waxaan noqday hooyo, ilmo ayaa ii joogo. way igu adkeed in aan gurigeyga ku burburiyo meeshaan iga guuri iyo aan deganaano, laakiin culays fara badan ayaa igu haystay. ninkiina waa isbedelay, waxaan sameeyeyna waan garan waayey. ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ayaan u cararay. waxaan bilaabay inaan in badan ducaysto oo aan si dhab ah ilaahay subxaanahu watacaala mar walbo aan u ducaysto. waxaana ku celcelin jiray istikfaarta, astaghfirullah wa atuubu ilayh, astaghfirullah wa atuubu ilayh. sidoo kale waxaan akhrin jiray ayay tiri xawqalada ama laa xawla walaa quwata ilaa billaah. sadaqa badanna waan baxsaday anigoo u niyeysanaya in ilaahay arrimahayga i furo. aad ayaan u istikfaarsaday. waxaan kaloo akhrin jiray xawqalada ama laa xawla walaa quwata ilaa billaah. waxaan bilaabay inaan wax sadaqaysto. ilaahay subxaanahu watacaala arrimahayga waa uu ii fududay, waana ii furfuray anigoo arkaayo. ilaa maanta aan deganahay guri uu ninkayga leeyahay. bilooyin kooban markii aan istikfaarsanayay, ninkii asiga ayaa yidhi, gurigan buuqa badan oo intaasoo dad ay joogaan kuma noolaan karno. guri ayuu gatay, halkaa ayuuna i dejiyey. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ii fududeeyey, gurigaygana ii adkeeyey, farxad nololeedna i siiyey, ducadeydina i aqbalay. qisadeena labaad maanta waxaa ka sheekeynaysa gabadhaani waxay tiri, waxaa jirta gabar yar oo aniga dhalay oo iga xanuunsatay. gabadhaasi dhakhaatiirtu waxay ii sheegeen in xalkeeda keliya uu yahay qaliin. qaliinkaba ha ahaadee waxay tiri qaliinka inuu yahay konton oo in lagu guuleysto iyo lagu guuldareysto intaba ay suurtagal tahay. waxaa la yidhi waxaad saxiixaysaa in annaga waxba aadan noo haysanin haddii gabadhaada dhib soo gaaro, haddii ay dhimato iyo wax walboo dhaco. waxay tiri aniga hooyo ayaan ahay, marka lagu dhaho waa inaad saxiixdaa in ilmahaagi wax walboo ku dhaco aadan noo haysanin. runtii waxay igu noqotay arrin aad iyo aad u murugo badan. waxaan idhi waan soo fikiraynaa, gabadhayna waa soo wadana, guriga ayaan keensanay. waxay tiri waan iska ooyey, ilaahay hortiisa ayaan ku ooyey, ilaahay ayaan baryey. waxaan aad iyo aad u akhriyey oo u laasimay oon u daa'imay ayay tiri istikfaarta. alxamdulilaah. waxaan dareemay ayay tiri calool adeeg iyo go'aan inaan yeeshtay. dhakhaatiirtii ayaan ku celiyey anigoo leh ilaahay ayaan tala saartay, ilaahay wuxuu ii qorana waan ku kalsoonahay. isbitaalka ayaa gabadheedii la geeyey, dhakhaatiirtii baaritaamo ayay sameeyeen. alxamdulilaah. waxaan filayay gabadhaada waa la qalayaa iyo diyaar matiin iyo kharashaadkii dhiiba iyo saxiixii sameeya, laakiin alxamdulilaah
dhakhaatiirtu waxay ii sheegeen inay gabadhayda caafimaad qabto oo aysan baqaliin u baahnayn oo caafimaadkeedu taam yahay keliya daawooyin yaryar ay u qorayaan. subxaan allah. waxay tiri isma lahayn gabadhaada ayaa qaliinka ka badbaadayso, laakiin waxaan ka murugsanaa oon ka walwalaya waxay ahayd gabadhaada mustaqbalkeeda hadduu dhibaato soo gaaro iyo haddii ay ku dhimato intaba nooma haysatid. taas ayaan ka walwalayay. alxamdulilah alxamdulilah, ilaahay awoodiisa arag. gabadhaydii qaliinkii oo idil ayuuba ilaahay ka badbaadiyeyba. qaliinkii oo dhan ayuu alle subxaanahu watacaala gabadhaydii ka badbaadiyey. dhakhaatiirtuna waxay isku raaceen in aysan baqaliin u baahnayn oo ay caafimaad qabto keliya daawooyin yaryar loo soo qorayo. aad ayaan u farxay ii tiri alxamdulilah. sababta igu kaliftay inaan qisadayda dadka la wadaago waa qiimaha iyo mucjisada aan ku arkay istikfaarta, si walaalo badan oo aniga oo kale ah iyo kuwa iga daran iyo kuwa dhibaato ay haysataba ay ugu dhiiradaan inay akhriyaan istikfaarta, ay u dareemaan qiimaha ay leedahay, ugana faa'iidaystaan. markii ay faa'iidadeeda arkaanna iyo soo duceeyeen. qisadeena xigta ee maanta waxaa ka sheekaynaya wiilkaani wuxuu yiri diinta ayaa waswaas badan iga haystay. haddii aan salaad tukado waxaa leeleeyahay salaadaadii lama aqbalin, haddii aan weysaysto waxaa leeleeyahay weysadaadii ma jirto. wax kasto aan sameeyo, haddii aan quraan aqriyo waxaa leeleeyahay quraanka maxaad u akhrinaysay, dad ayaa ku maqlaya, dadka ayaa istustusaysay, camal oo istustus ku jirana lama aqbalo. wuxuu yiri maskaxdeeda buuq ayaa igu furma, wax walba shaki. xitaa wuxuu yiri adkaaru sabaax markii aan akhrisanayo oo aan bilaabo bisinka oon alxamdu aqriyo waxaa leeleeyahay alxamdu maadan aqrinay ku celi. sidii la ii waswaasinaya waxaa dhacday ayuu yiri in adkaaru sabaax keliya aqrinteeda galab la igu gaaro. warka wuxuu yiri waswaas aan caadi ahayn oo xad dhaaf oo tilaabo walba aan qaado maadan qaadin. shaygan ma samaysa mise ma samaynin, salaada ma tukatay mise ma tukanin. haddii aan hoo inaan tukadayna in la dhaho lama aqbalin. markii aan weysaysto in la dhaho weysadaadii waxbaa ka qaldanaa ku noqo. maanta dhan maskaxda in laga wareeriyo. marar badan ayaa waxaa dhacda ayuu yiri sidii la ii waswaasinayay inaan markii dambe iska dhaafay. shaydaanka wuxuu rabo waa intaas. markii aan weysaysto ama aan salaad sunno tuko isdhaho ama duca akhrisa aan isdhaho, inta ayaa la iga soo maraya, inta ayaa la waswaas ayaa lagu furayaa. ugu dambeyn waxaan arkay ayuu yiri wiilkan anigoo wixii iska dhaafay. marka waxaan dareemay shaydaanka siduu rabay inuu iga helay. baaritaano badan ayaa sameeyey, culimo badan ayaan la xiriiray. waxay igula taliyeen in aan istikfaarta badsado, sidoo kale tasbiixda inaan aqriyo subxaanallah inaan ku celceliyo, iyo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam inaan akhriyo ayaa la igula tiri ayuu yiri. inaan istikfaarsado, inaan tasbiixsado subxaanallah aan dhaho, iyo salliga nabiga inaan akhriyo. sidii ayaan sameeyay ayuu yiri. istikfaarta maalin walba 1,000 mar ayaan akhrin jiray, subxaanallah maalintii 100 mar ayaan akhrin jiray, salliga nabigana sallallahu alayhi wasallam 100 mar ayaan akhrin jiray. wuxuu yiri maalinkii aan bilaabay inaan istikfaarsado oon tasbiixsado oon salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam akhriyo ayaaba iigu dambeysay waswaas iyo shak iyo saan ma sameysay iyo ma sameynin. wuxuu yiri wax walba aan qabto waan ka sii soconayaa. ilaahay xasiloona ayuu i siiyey, ilaahay qalbiga ayuu ii dejiyey, ilaahay waswaaska iyo shaydaankii ayuu iga qaaday. alxamdulilah ayuu yiri waan degay. waxaan ahaa qof aan xasiloonayn, qof tilaabo walba oo noloshiisa uu qaaday ka shakinayo. runtii waa cudur waswaaska. alxamdulilah ayuu yiri maalinkii koowaad ee aan 1,000 mar akhriyay istikfaarta, salliga nabigana sallallahu alayhi wasallam 100 mar akhriyay, 100 marna aan tasbiixsaday, waxaan arkay isbedel cad oo nolosheeda. alxamdulilah maalinkii ayaa waswaas iigu dambeysay. anigana ilaa maanta ma joojinin ayuu yiri oo waan ku dhaganahay. alxamdulilah wax walba aad ku faa'iido waxa wanaagsan inaad joogtayso, inaad dadka kale la wadaagto si ay idan uga faa'iideystaan. waayo qof walaalka maanta markaad wax wanaag tusisay oo wax khayr ah tusisay oo uu ka faa'iideystay, runtii mar walba qalbiga ayuu kaaga soo duceynaya. ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajir waa uu kugu siinayaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu ilaahay naga dhigo kuwa xaqa uu ku sugo, ilaahay inuu khaatimada wanaajiyo, ilaahay amalkeena kan ugu wanaagsan uu ka yeelo kan ugu dambeeyo.
waayo qof walba wuxuu uu ku dhintay ayaa lagu soo saari doonaa. intaasoo sano qof wanaagsan haddaad ahayd ood camal khayr ah iyo wax walba samayn jirta, hadduu khaatimada kaa halowdo waa halis, oo mar walba khaatimada ayaa muhiim ah. marka ilaahay subxaana watacaala in khaatimada noo hagaajiyo, ilaahay subxaana watacaala in nimcooyinka noo ziyaadiyo. alla wuxuu yidhi lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid. mar walba qof shukriyo noqo, alxamdulilaah. balaayo iyo musiibo hadday kugu dhacdo sawar ha sheegin, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku siinayaa awood aad oogu dulqaadato. ilaahay waa kaa qaadayaa, ajarkaagina waad leedahay. marka musiibo iyo balaayo hadday kugu dhacdo sabar waa lagu imtixaamayaa. nimco hadduu ilaahay ku siiyo ku shukri, alxamdulilah waa lagu fiirinayaa. mar walba dadka sabra ayaa dadka shaakiriinta ah, waa dad uu ilaahay subxaanahu watacaala amaanay. kan maanta hantida iyo hoolaha iyo caafimaadka la siiyey dadka le kama fadli badno, ilaahay dadka kama xigo lagamana jeclo. laakiin nimcadaas laftigeeda ayaa lagu imtixaamayaa. waa la fiirinayaa inuu dhahayo anigoo reer hebel ayaa hantidan helay, anigoo saan ayaan helay, inuu dhahayo iyo inuu ilaahay subxaana watacaala awoodiisa inuu qira dhihi doono ilaahay ayaa i siiyey. bini aadam xun oo daciif ah ayaan ahaa, ilaahay ayaa awoodiisa igu siiyey, alxamdulilah ilaah ii ziyaadi. hadduu dhaho ilaahay waa u siyaadinayaa. laakiin nimcadii lagu siiyey markaad dhahdo aniga sidan ayaan weligiiba u heli jiray, anaga reerkeena saanay mar walba ahaan jireen, haddaad nimcadu ilaahay ku siiya meel kale u leexiso, ilaahay wuu kaa qaadi doonaa, wuxuuna ku tusi doonaa waxaa tahay iyo awoodda aad leedahay. marka ilaahay ayaa nimcadan ku siiyey, lacag kumaadan helin, qabiil kumaadan helin, dadka inaad ka qurux badan tahay kuma helin, ilaahay ayaa ku siiyey. taas garo, alxamdulilah dheh, ilaahu ii ziyaadi. dadka la imtixaamay, dadka lagama necbo, dadka kama liitaan, waxba lama dheero, laakiin ayaga laftigooda haddii ay sabraan ilaahay subxaana watacaala abaalmarin weyn ayuu siin doonaa. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa mar walba inuu khayrka iyo xaqa nagu hanuuniyo. intii walaal ee xanuunsanna alla subxaana watacaala caafimaad taama siiyo. intii murugaysan ilaahay subxaana watacaala murugada iyo kurbada iyo kadeedkaa ka fiido. intii dhibaato haysata ilaahay dhibaatadaa ka dulqaado. intii guur raadis ah ilaahay subxaana watacaala guur barakaysan oo khayr qaba oo xalaal ah alla subxaana watacaala ha siiyo. qof walba muraadkiisa oo aan macsi lahayn ilaahay siiyo. intii awlaad raadis ah ilaahay subxaana watacaala awlaad barakaysan oo baaryaal ha siiyo. ha ku dadaalaan istighfaarta. haddaad xoolo raadinayso, haddaad awlaad wax walba aad raadinayso, istighfaarta ku dadaal. ilaahay subxaana watacaala ayaa inoo sheegay in xoolaha, awlaada, wax walba istighfaarta lagu helaayo. marka ku dadaal istighfaarta. meeshaad ka ooman tahay, meeshaad ka dhibaataysan tahay, ilaahay subxaanahu watacaala waa kaa dhibaato tirayaa, waa kaa untirayaa. waa mahadsantihiin walaalaha khayrka jecel. muuqaalkeena maanta halkan ayuu ku egyahay. haddaad halkan soo gaarta muuqaalka like saar si ay walaalo badan uga faa'iidaystaan una gaaraan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.